ee ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa la wareegay howlaha tiro koobka iyo dib u habeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Wariyahayaga Saciid Aadan Raag ayaa warbixintaasi inoo qaada dhigaya. xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa la wareegay howlaha tirkoobka iyo dib u habeynta ciidamada oo toddobaadii uu jahwareer badan ka taagnaa kadib markii ay gadood sameeyeen ciidamada ka tirsan xoogga dalka. Talaabooyinka lagu tirkoobay ciidamada ayaa durba ka dhashay qayladhaan kadib markii uu hakaday mushaarkii ciidamada iyo raashinkii ciidamada, waxaana taasi keentay ciidamo badan ay ka soo baxaan difaacyadooda iyagoo ku andacoonay in ay mushaar iyo xuquuqdaba helin muddo 4 bilood ah. Arrimaha ugu waaweyn ee taagan ayaa ah qaabka ay u socoto diiwaan gelinta ciidamada iyadoo su'aalo badan ka yimaadeen waxa xilligan ku soo beegay. waxaan u dhaaranay inaan difaacno soo diinteena maaha. waxaan idin sheegayaa haddaad dhimataan waxaad tihiin xaquudir mujaahidiin baad tihiin. idinka maanta aad baxaysaan insha Allah waxaan idin rajaynayaa guul. waxaan idin rajaynayaa guul. waxaan idin rajaynayaa guul. Soomaali ha noolaato. Soomaali ha noolaato. Soomaali ha noolaato. Madaxweyne Farmaajo oo 2 sano ee la soo dhaafay ku guda jiray howlaha dib u habeynta ciidamada dhowr jeerna saldhigtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga si uu dib ugu qaabeeyo ciidamada qalabka sida ayaa culaysyo badan oo gudaha iyo dibadda ka soo wajaheen. Madaxweyne Farmaajo oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayna hoos tagaan dhammaan talisyada ciidamada ayaa ku adkaatay howlaha dib u habeynta iyo dib u dhiska ciidamada. ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu go'aansaday in howlaha ciidamada uu ku wareejiyo ra'iisul wasaare Khayre maadaama dhowr caqabadood uu kala kulmay. ilaha muhiimka ah ayaa sheegay in madaxweynaha lagula taliyay in arrimaha ciidamada uu u daayo ciidamada si aanay eed uga imaanin haddii uu wajaho maadaama ciidamada ugu badan ee ku sugan Muqdisho iyo labada shabeelle ay ka soo jeedaan beelo gaar ah. sidoo kale beesha caalamka ayaa iyana door biday in hawsha dib u habeynta ciidamada uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha. arrimahan oo dhan waxay keeneen in ra'iisul wasaare Khayre iyo xukuumaddiisa ay gacanta la galaan arrimaha ciidamada, waxaana si toos ah uga shaqaynaya wasaaradda amniga, maaliyadda, gaashaandhigga iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. diiwaan gelinta ciidamada oo ahayd arrinta ugu adag ee hortaala dawladda ayaa hadda gabagaba ku dhow, waxaana qorshaha dib u habeynta ciidamada ee uu wada ra'iisul wasaare Khayre soo dhaweeyay beesha caalamka iyadoo faahfaahin laga sugayo inuu ka bixiyo shirar ka dhacaya horaanta bishan magaalada Washington ee dalka Mareykanka.